السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسو دوادا warbixin ku saabsan Erdogan oo iska difaacay eedeymaha ka dhashay madxaf caan ah oo uu ka dhigay masjid. Madxafka caanka ah ee Hagia Sophia oo ku yaala magaalada Istanbul ayaa mar kale loo bedelay masjid kadib go'aan uu gaaray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Go'aanka Erdogan ayaa daba socday xukun ay maxkamadda riday oo ahaa in si sharciga baalmarsan markii hore goobtaasi looga dhigay madxaf. Hagia Sophia oo la dhisay muddo 1500 sano laga joogo ayaa waxaa markii koobaad loo aasteeyay kaniisad, balse boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa sanadkii 1453 u bedeshay masjid. Goobtan oo kamid ah kuwa caalamiga ah ee u diiwaan gashan hay'adda UNESCO ayaa dowladda Turkiga ay 1934 waxa ay ka dhigtay madxaf. Islaamiyiinta Turkiga ayaa intii muddo ahba ku baaqayay in Hagia Sophia mar kale laga dhigo masjid, balse waxaa arrinkaasi diidanaa xisbiyada mucaaradka ee aan aaminsanayn diinta. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxda diimaha ee caalamka ayaa dhaliilay go'aankaasi. Madaxweyne Erdogan oo difaacay go'aanka ayaa sheegay in dalkiisu uu madax bannaanidiisu ku saleeyay tallaabada uu madxafkaasi mar kale uga dhigay masjid. Waxa uu intaasi raaciyay in salaada ugu horeysa ee dhismahaasi lagu tukan doono 24 Julaay. Si la mid ah masaajideena, albaabada Hagia Sophia waxa uu furnaan doonaa muwaadiniinteena iyo ajaanibtaba, muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn, ayuu hadalkiisa raaciyay. Waxyarun kadib markii uu madaxweyne Erdogan shaaciyay go'aankaasi ayaa Hagia Sophia laga aadimay, waxaana aadaankaasi laga baahiyay guud ahaanba warbaahinta Turkiga. Hay'adda UNESCO ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay go'aanka madxafka loogu bedelay masjid, waxaana xukuumadda Turkiga ugu baaqday in ay wada hadal ka furto arrinkaas.